wararka ka imaanaya magaalada Harar ee wadanka Zimbabwe ayaa sheegaya in ka badan 100 qof oo qaxooti Soomaali ay dhibaatooyin aad u daran ku haystaan xabsi ku yaala dalkaasi ka gadaal markii ay soo food saartay xaalad nolol xumo oo ku dhaxaysato gudaha xabsiyada dalkaasi Zimbabwe. dadkan Soomaalida ayaa lagu soo waramayaa in toddobaadyo ka hor ciidamada ammaanka ee ilaaliya xadka u dhaxeeya dalka Zimbabwe iyo South Africa ay soo qabqabteen isla markaana ay ku xireen xabsi ku yaala dhinaca Zimbabwe ee Bay Bridge. waxay wararku xaqiijinayaan in dhibaatooyinka haysta dadkan Soomaalida ay ka mid tahay caafimaad darro, cudurro kula dhacay xabsiga gudihiisa iyo xadgudubyo la sheegay in ay u geystaan ciidamada ilaalada ka ah xabsiyada dalkaasi, iyadoo dadkan Soomaalida ay ku xireen xabsigaasi qaarkood ay ka soomeen cuntadii. sarkaal sare oo ciidamada booliska dalka Zimbabwe ka tirsan ee ku sugan magaalada Bay Bridge ayaa saxaafadda uga warbixiyay dhibaatada haysta dadkan Soomaalida ay ku xireen xabsiga magaaladaasi. wuxuuna xaqiijiyay in mid ka mid ah Soomaalidan ku geeriyooday xabsiga gudihiisa kadib markii cuntadii ka soomay, halka qaar kalena laga cabsi qaba inay ku dhintaan gudaha xabsigaasi haddii ay ku sii adkaystaan ka soomidda cuntada iyo biyaha. dadkan waxaanu ku wareejinaynaa maxkamad, waayo waxaa la soo qabtay iyagoo ka tallaabaya xadka, mana haystaan dadkani wax cadaymo ama aqoonsi ah. sidaas daraadeed waa dad ka soo cararay dalkoodii, hase ahaatee ma jirto sabab ay dalkani ku sii joogaan. midda kale, iyagoo dalkoodii joogo kana shaqaysanaya ayay magangelyo weydiisan karaan. sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ammaanka ee dalkaasi Zimbabwe. inkastoo lagu soo waramayo in dalka Zimbabwe ay ku xiran yihiin dad fara badan oo Afrikaan ah, ayaa haddana tirada ugu badan waxaa la sheegayaa inay yihiin Soomaali doonaysay inay ugu sii gudbaan dalka South Africa, kuwaasoo la qabtay laguna xiray dalkaasi Zimbabwe. dhinaca kale, qaxooti Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa iyo 10 qof ayaa la dhigay horaantii bishan aynu ku jirno isbitaal ku yaala magaalada xuduudda ee Bay Bridge, iyadoo ay saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka magaalada Bay Bridge daweynayeen 8 ka tirsan dadkaasi oo xanuunsan, isla markaana ay dib ugu celiyeen dalka Zimbabwe oo ay ka soo galeen markoodii hore. waxaana weli lagu hayaa gudaha isbitaalkaasi 2 qof oo ka tirsan qaxootiga Soomaalida la sheegay inay xaalkooda caafimaad aad u liidato. sarkaal ka tirsan booliska magaalada Bay Bridge ee wadanka Zimbabwe ayaa isagana sheegay in dowladdu ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu sugayo ammaanka dalkeeda, waxaana uu sheegay in ay qabaan walaac la xiriira inay qaxootigani saameeyeen ammaanka, isagoona ku nuucnuucsaday in inta aysan faraha ka bixin ammaanka loo baahan yahay tallaabo kasta oo looga hortagayo amni darro ka dhalata gudaha magaaladaasi. Soomaali fara badan oo ka cararay rabshadaha ka jira dalka Soomaaliya ayaa ku sugan dalalka dariska la ah dalkani Koonfur Afrika sida Mozambique, Malawi, Zimbabwe, kuwaasi oo doonayo inay galaan dalka Koonfur Afrika. waxaana jira weli dad Soomaaliyeed oo ku jira xabsiyada dalkaas, iyadoo aanay jirin dowlad xil iska saartay sidii wax looga qaban lahaa. si kastaba ahaatee, dalka South Africa ayaa waxa uu martigelinayaa kumanaan kun oo Soomaali ah, kuwaasoo ku kala nool magaalooyinka waaweyn ee dalkani Koonfur Afrika sida magaalada Johannesburg, Cape Town, Durban, Port Elizabeth iyo magaalooyin kale, kuwaasoo la dhihi karo waxay ku haystaan ganacsi ay nolol ka wanaagsan midii ay ka soo carareen ay ka jirtay dalka Soomaaliya. hase ahaatee, haddana waxaa jira mararka qaar tacadiyo ay kala kulmaan dadka reer Koonfur Afrika. Cabdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.